koox la yiraahdo wadaniina inta la aruuriya doorashada galay annagana waa camirayna waxa u maleynaa in intaas ka weyn dalkan siyaa xukumo horta wixii dhaca waxa lagu leeyahay madaxweynuhu ma oga iyo xukumo dalka annaga ninka madaxweynuhu yaa ku wareejisay adiga dalka madaxweyne ana dawladda awoodey iyo hantidii qaranka waxaan aaminsanahay inay u sakharto dad inay ku caydo Facebook wiilal iyo gabdho guriga jiifo oo Yurub iyo Mareykan laga keenay oo dadka caayay plan iyo Jubbaland salaanka dib waxaan rabaa inaan aad uga mahad celiyo xisbiyaasha qaran ee halkan taagan kalsoonida ay igu doorteen inaan hogaamiyo madashan qaran waxaan u ballan qaadaa insha Allah tabaaraka wa taala sida ugu wanaagsan oo hawsha la asteeyay loo gaari lahaa inaan hogaamiyo intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago asbaabta loo aasaasay madashan waxa la wada socotiin axsaabtu dalkeena xilli dheer kama jirto laakiin haddana waxa loo aasaasay inay abuuraan jawi siyaasadeed oo lagu tartamo oo ku dhisan nidaam is-ixtiraam iyo dimuqraadiyad ku dhisana si looga gudbo marxaladda adag ee 4.5 loona gaaro marxalad baahsan ee asaaskeedu yahay dadku inay isu raacaan aragti siyaasadeed ayadoo taasu ay jirto oo cid kastaba ay ku mashquulsan tahay ama xisbi kasta oo ku mashquulsan yahay waxyaabihii loo aasaasay haddana waxaa soo baxday in uusan jirin waxa aan ka hadlayno inaysan muuqaninba doorashadii waxaa ka dhiman sanad iyo in yar ilaa hadda ma muuqato nidaamka aan doorashada ku geli doono ma jirto xurriyaad axsaabta siyaasadeed iyo dadka Soomaaliyeedba ay ku dhaqdhaqaaqi karaan oo ay ku guda karaan waajibaadkooda qaran waxaa la socotiin magaalada Muqdisho haddii la damcayn wax laga sameeyo waa in dawladda fasax ka hesho arrintaasna waxay ka soo horjeedaa dastuurka waa غير dastuuri axsaabta siyaasadeed iyo qof kasta Soomaaliya dastuurku wuxuu xaq u siinayaa inuu meesha uu doono iyo cidda uu doono iyo waqtiga uu doono inuu qabsan karo shir madashan waa ogtihiin aragtidaas ay xambaarsan tahay oo ah dadka Soomaaliyeed inay helaan nidaam cadaalad ah waxyaabo ay u taaganta waxa kamid ah space kaas in la helo qofka Soomaaliga inuu helo xurriyadiisa iyo xuquuqdiisa waxna waa ra'sumaal waxna waa sharaf walaalka ama walaasha sharaf waa ku leedahay laakiin hadaa ka weysamo weydii kartid laakiin xuquuqdaada iyo xurriyaadkaaga kama tanaasuli kartid waxaan wada ognahay dalkan asbaabta u burburay xuquuq iyo xurriyaad la waayay waxa u burburay ku takrifal awoodeed qofka la aamino ee lagu aamino xil qaran ee u adeegsada awoodiisa si khaldan ee ku dhibaateeya dadka kale waxa ay dhalinayso waa naqaan nasiib darro 30 sano kadib inaan wali afkaartii xambaarsanahay waa arrin aan lagu farxin waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed dawladnimada inay jecel yihiin waana tan keentay dulqaadka ilaa maanta ay dul qaadanayaan waa tan keentay bisaylka maanta xisbiyadu intay isugu yimaadaan ra'yi urursan ay ku waajahaan arrintaas dadku waxay yiraahdaan xurriyaadka iyo xuquuqda la isma siiyaa waa la soo qaataa annagu hadda maanta waxaan u arkaynaa si practical waxaan filaynaa runtii qof walba Soomaali inuu xurriyadiisa iyo xuquuqdiisa dood la'aan helo laakiin waxaan noo muuqata inaan u baahanaa mar kale inaan u istaagno xuquuqdeena iyo xurriyaadkeena mas'uuliyaduna waxay saaran tahay cid qayb ka geysan karta xisbiyada madasha qaran waxay u taagayeen horta kow arrintaas dadku xuquuqdooda iyo xurriyaadkooda inay helaan laba waxay u taagan yihiin in dawladdu ay ku dhaqanto sharciga oo Soomaaliya laga hirgeliyo waxa la yiraahdo sarreynta sharciga ummad waxa lagu ixtiraamaa sharcigeeda sida uu yaalo xuquuqda oo bixinaa iyo sida ay ugu dhaqmaan dastuurkii yaraaya aan qorannay oo ku meel gaarka ahay haddii meel la iska dhigay waxaan u malaynaa arrintaas inay qof kasta Soomaaliya waajib uga dhigayso inuu u istaago si dastuurka loogu soo celin lahaa positionkiisa
halkaas waxaan rabaa wax yar inaan ka jaleeco nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam oo aan hubo inaan wada jecelnahay madiina markuu tagay waxa deganay madiino niman la yiraahdo mushrikiin oo waxba aaminsaneen ama waxba aaminsaneen ficlan laakiin diin rabbaaniya ma aaminsaneen oo kitaab samaawiya ma aaminsaneen waxa jooga nasaara waxa jooga yahuud waxa jooga muslimiin nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u sameeyay wax la yiraahdo wafiqatul madiina وثيقة المدينة أو دقنتا دستور أيو أسمي أو قفل بو مدينة دقن حقوق سينيس عقل جانا مسلمين تو ما انتجره هي عقل جا سؤال يوكل الدونان ماشى سفيرية قفك يهودك قفك مسيحك قفك مسلمك قفك مشركة وحيلين حقوق سمن أو مدنية كن أفر بقول أفرتن يجوج سنة كدي أنا ومسلمين أنا كدودنا أرنتاس عيب النقطة الدنيا ده هراء مرتي وحي هروق مرتي حل شيء بس إن الدستور لا ده هاي دستور كاسنا يراعان هرمركم معها حب هرمركم معها دقالة هرمركم معها أقوان كله هرمركم الدستور ينلقوا رقمه مثالا ربعنا هذه السيئة العراق حلق صدام حسين دولة ضعيفة ما هي دولة حقوق بدن دولة حقوق بدن محيو بربرت دستور كم يجري دستور لقوا مدق مجري سوريا وحي كمتها أدون كما لها سيفيلايزيشن كأوجه الرئي كمتها محاك جرى مانت ما أقول الآن هايسة ما ثقافة الآن هايسة ما دقال الآن هاي ما هي مشكلة دوا مشكلة دستور وهلو مجرى أنا وارهم ضد مساكين عناي لكن وحنا نقعنا تنتين وصور دبتونا صدق سنة دبكو سوجرني مرة من إنا الله بنا وحنا رنا بو قاسر أو نويا له إنا أكو كلا دم بين مركب مدرسة وحيابي أستاجنت وحواي سرّينت دستورك ما أنت مدحونا فرماجة دلك مدحونك وحنا رنا إنه هرجلي يعني رنا أو شرف كقاط دستورك أو لجرب مرة شرف لو مكينك نقطة سد هذا وحيت هاي دور شوينك مركز سياسة دور شو ده يسود دوات حدان لهلين أركت سياسات ذاتك السياسيين تأيكون مدرسيين تلقوا حقولها يا فوضى من نقان إلى هذا دور شو ده صاصع وحلو جلها لنا دولة وحيل هذا هاي كلنا مقشنا أمرنا one man one vote one man one vote انتهى لقصمينا one man one vote لا بدي سي ملا قاده امنيغي ملا سوغاي dadkii mala tirakoobay sharciga ma la ansixiyay wax la isku waafaqsan yahay ma jiraan mase sida gudoomiye Usmaan oo sheegay iyo harassmentiga socda waxaan rabnaa dawladdu si degdeg ah inay wax uga qabato waxaan ognahay saxafiyiintii Soomaaliland waa la xiray Soomaa maxaa lagu xiray dad mudaaharaad ay soo tabiyeen Soomaa wa xuquuqda saxaafadda xorriyadka saxaafadda kuwa kale waxay ku xiran yihiin baydhabo waxay u xiran yihiin dawladda ما أهم معمول كأنه يحرين حكتها هنا وري تبيان ضد ضيالة الشاقين إلى هذا وكحرين ما هي كحرين دل كانوا وحود ما عدالة در ما أقبلين أنت عنولنا هاي عدالة در نفتنا أنا كما أقولانين وقفك أنا كما أقولانين وحاربنا قاس إني أدو فهمت الدولة الشرف قف مضح وحاقو فلن إنه عدالة سميه إلهي إنه يقول هذا وح كم مهم سن ما أنت اللي جوق عدالة مجران وردكان عدالة درا بالبرس dadkan waa ku soo baxeen waa ku taageereen xoolo kuma bixin waxa ay rabeen dawladnimo ahna kugu taageereen dawladnimada isweyd dalkan siyaa xukumo horta wixii dhaca waxa lagu leeyahay madaxweynuhu ma oga iyo xukumo dalka annaga ninka madaxweynuhu yaa ku wareejisay adiga dalka madaxweyne anna madaxweynaha la xisaabtamayna dadkan kale hoos laga sheegayo shaqo kuma leeyahay قضبك أفراد مرة يسمع قضبك أفراد وحواي حاجة يجوه الري لكن أنا سيب يعني روا نظام كفدرالك المسلمون على شروطهم شمال أنت إيش تجان أنا كمد ما أهين ولا حسن كم أنت قف جوجكم مجرين بقات أنت إيش تجان وحصاد دورت النظام فدرال أنا قدرت كديدنا كمد نظام كفدرالك قبله رابش وايكن
ما في عنا لكن تذكر حكوا شيء بدل كرت هشيس وحلو جيبي كره هشيس كره نظام كفدرال كهلا احترام وأقولنا هاي واحد دولة كوضع معمل قبلات ذا كرأي دوان إن لكلا رأي دوان هذا دولة لماذا كمت أنا وحن آمسنا دولة دان هذه النصيبة أنت وحن حسوستا شركة كوباد اللي قبت لندن الدولة ده معمل قبلات اللي قبت معمل قبلات ذو سي أن عادي هنا وتاجرين دولة وقرب استاجر دبر كيس يجوكس المدحينا كرسوني دي أي سيان ما أنت حاجة مرسى كوا آمسنا حنون إلى آمسي وهو شك حتى يجمجر كوا كان نوع عد استيحنا ولا وحنا شقة ما هي جوج أني مدحوين حسن وحن جوب جوجه هنا شركة قروي واللي قد أحد حادنا مدحوينها يوم مدحوين قبلاتها فرصة ذهب يميسك الله صار ما أنت ما شعرت مرسى وحمرسى ما أنت إن لقى أبابلو مظاهرات بطلان هي جبلان والله عقد قرنك ما حقوق بحنا سامع شو اسمه الحين ما لو قبها مظاهرات الأبابل وأكل رأي دوانتي نسوي ماذا فرنسا شيء that's all هوش أنت سواك سيدارت هوش أنت سواك سيدارت هاي أنا وحنا ربعنا أدو عطاله صراحة ربع ما أنت أنا ملا سعتين عيدما أجنبية إن أحمد من الله فرأينا قصوقت ما سعتين مثل مسعتين هذا كهر مركي أو درشة العيس سلام مسعتين بالله عليكم أنت أصدق على المحل على تقال قبيلة ولقيس لما أنا على بقول جسده ما إذا لك أنا كأمسكرنا كما أمسكرنا فرماجي أحمد وإسمين قبل نما عنك تبي كليا مسقف ورك قباجر لكن دولة إن أود الدبلوماسية وأذيك صدق إن قف كلا أمس ما لا أقبلك وحلا قرية وحلا لا قرنا كجرة ما قرنين بناك اللي تعجنا حزبية قرن هل كان سوي مذي وحكى الله إن حقوق هي حريات كدتك حقوق سياسية حقوق نولاد حقوق دقالة وما إلى ذلك دل كان مقالة ذا مقدش دقالة هذه وادمي محو دمي مال البوال الحري من أخياره دتك أقوى وين أنتو يمدوا حرني والله يعني ما حد عاي باور مالن قوة ضمن حقامي كوحدة مركز جوجين يهدى دتك حين حقامي حدك مركز جوجين أفعنا وحلاقة مركز قارن استراحة ومبالغة ما مبالغة أنا دتك أي شيء محيا لي دقائق لأقول يهاجري أو لا نولابي دولتي أن قعمها إنه كل سنة وحصل ظلم يدك إنه كل سنة أن كأمسنا أنا قاعدين بنقول نقاهر أرنتم مدحني مدون معها كرسي كريحشة معها قف عيب معها قف جعيل معها وإلى أنت دستورك أو دولة كل سنة that's all مركب وحن ربنا الصومالية أنهاي مسؤولية إله النصارى قفلوا بواح قرد إنه ولد دالنا لأن يرضى أن يهرتاجون وجود شيء قبلها له خطرت أيجا أهرة ماشي حبض كل عيس أيجاتك جدتك أيجا جيران هذا ما أنت حرية دوا واين أسكرت الدل كان أصدق على أنت مثل أركبة وحل خلال الوسبي أيضا شرع الله مري يا سمينا يدات شلا مركان واحد عاين قريه هذا الجوج والشقيسنا المود اللي جوج هذا لازم يا وحاس قف كصدر كان كسوق قبته حال توج واي فرناجة توجا ماهن تتشرف لها النهاي دلك أنا أصلا شقيني هذا أنا وأتاجني مامل وناقي وحبان الله آخر يا هذا أنت دورها جود محصو صار ما جود بس مرة محصو صار عملنا 4 مليون 4 يلا مرنا سدادي طبعا جهاز كدولة كشقينا يا أنت صار أنت عن لوجينا ترى ذاك بدر سماه أنا واحد أهربنا أصل أنا مامل وناقي ومدة أنك هذا مامل وناقي waxaan rabnaa marka waa run dawladdu culays waa haystaan laakiin gaabis jir waxay ka gaabisay dariiqi saxda ahay oo dawladnimada waa ka leexatay dawladnimada ma raba inaan dhaxda dhigaaniga muxuu yahay dariiqaas waa ilaalinta dastuurka waa ku dhaqanka dastuurka oo hadaan dastuur ilaana maxaan ku wada joogaynaa
shalab ilmaadeeran ku wada joogi jirnaa matiyaan ku wada jooganaa Soomaalidaanu qabiil waa ka soo daashay waxay rabaan dawladnimaduna waa inay ahaataa mid wixii lagu heshiiyo ku qotanta inay ahaataa loo baahan yahay marka waxaan rabaa inaan idhaa madasha xisbiyada qaran albaabkeedu waa furan yahay calaa masracihi u furan yahay wax shakhsiya kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa wax qaran arintaas ma caddo xalaad ma qabno laakiin mabaadi' ana aaminsanna waxaan aaminsanna qofka Soomaaliga inuu xuriyo inuu waajib tahay qofka dambi gala sharciga ayadeenayo mararka qaar waxyaabaha dhaco khatarta waxa kamid ah madaxda dawladda qol aan shaqo ku lahayn dadka inay xirto dadka in la xirso lagu xiraa waxa lagu xiraa qofka inuu dambi galo hay'adda shaqada kulada ay soo aadayso xeer ilaalinta qofka xiris maxkamadda xiris aan dhaho xeer ilaalinta aadaynaysa yaa xiraaya maxkamadda xiris qof la iska xiri kara ma jiro hadii dawladnimo laga hadlaayo hadii loo noqonayo tii hore oo nin walba ninka ka xoog badan xirto wax kale waa taas ka hadlayna anaga taas waxyaabaha ka dhaca dalkan ay ka mid tahay dawladda awoodeedii iyo hantidii qaranka waxaan aaminsanahay inay u sakharto dad inay ku caydo Facebook wiilal iyo gabdho guriga jiifo oo Yurub iyo Mareykan laga keenay oo dadka caaya maxaa u sameynaysaa waxaas dawladnimo ku imaanaysaa waxaas ma ku imaanaysaa mase u malaynaysaa caay inuu la jooji karo abadan waxay ka mid tahay habka dictatornimada ay ka mid tahay qofka in la cabsi geliyo in sumcadiisa la dilo in la ciriiriyo in la handado qaar la wararo guriyahooda lagu wararo iyagu habeen joogan sax wala la dawladdu dariiq kale ay martamo weys Cabdiraxmaan ku filnaa Cabdiraxmaan waxaana gashay xiraalinta loo geeyay maxkamadda loo geeyay maxkamadda tag easy wakaratan Soomaa billahi alaykum ku fikirtaan waligen waxa ka dhala kara arintaas dawladdu waxa ay sameynayso waxa ka dhala kara kama fikirto arintaas waa arin khatar madashaanu waxay u taagan tahay waa dawlad wanaag waa dawlad dhisid waa midan shacabka Soomaaliyeed inay tilmaanto dariiqa saxda ee ummadana ay ku guuleysan karto inay tilmaanto dariiqa khatarta ee ummadana ay dhibka ka soo gaara shalay maanta inaysan ku laaban waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto fursadan inaan u tacsiyeeyo dadkii ku waxyeeloobay ama ku dhintay ama ku dhaawacmay ama hantidooda ku waayay ama ku barakacay fatahaada webiga Shabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo magaalooyinka kale ee dhibaatadu gaartay inta dhimatay Allah u naxariistaan leenahay inta dhaawac wax ku gaarana ku dhaawacanta Allah caafiyo inta ku anti beesha Ilaahay meel khayr wax ka siiyo dadka Soomaaliyeed ee cid kasto wanaaga jecelna ha caawisan leenahay waa mudan yihiin maanta waa walaalaheen dhibaataysan oo kalmadeen u baahan ayagana Allah ka gacanta Ilaahay ya buuxde Allah ku deeq ayagana insha Allah tabaaraka wa taala markale waxaan ka mahad celinayaa runtii sida wanaagsan iyo dulqaadka iyo kartida bahda saxaafadu ay khatarta ugu bareertay habeen iyo maalin marxaladaha adagoo aad soo marteen waxaan idin rajaynayaa guul waxaan rabnaa in adunkuna xur aan naqatiin anagoo aan xur naqano qof kasto Soomaali xur ahaado waxa sharcigu siinaya bas wax kale ma jiraan